Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya way iska cakiran tahay gabiyaanba wax heshiis lagu yahay wax lagu midaysan yahay male madaxweynaha dawladda gabagaba ayuu maraya sanadkii ugu dambeysay ayaa la maraya mucaaradku way qaylayaan madaxdii dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka wax isla jaan qaada walaalaya madaxweynuhu hadda wuxuu awoodda saaraya xisbigiisa oo wadabada u aaso iyo doorashada qof iyo codka oo xoogga la saaro oo ah dastuurka iyo doorashada ayaa isku lamaan dastuurka oo wax laga bedelo waxay ka dhigan tahay dalka oo doorashadii 4.5kii awood qaybsigii teendhadii ka gudbay oo doorasho qof iyo caadi ka dhigan tahay marka dastuurka iyo doorashadaas ayaa isku lamaan marka xasan wuxuu ku dadaalayaa inuu dastuurkii iyo doorashadiina israaciyo xisbina uu dhisto oo la noqdo dalkan ay saddex xisbi uu ka tartamaan xisbigiisu uu noqdo number 1ka 2 iyo 3 kulladan oo la tartama ay noqdaan waana waxyaabaha dalka lagu galday beel caalamnimo xalana jooga jira ayaguna dood ka qaba qaab dhismeedka hadda ama xasan sidoo wax ku wado bal gooni baan weydiinayaa gooni oo lafta gareen waxa uu shalay inuu ka soo tagay muqdisho waxa la leeyahay lafta gareen ma diidaneen dastuurka iyo dalka oo la xoreeyo barnaamijka iyo doorasho qof iyo cod ma diidaneen laakiin midda uu ka soo xanaaqay waxa la leeyahay waa arrinta xisbiga ee laga codsaday inuu xisbiga ku soo reebo koonfur galbeed ku soo biiraan wuxuuna yiri baa la yiri lafta gareen laba xubin buu codsadaa la yiri horta wuxuu yiri gabiyaanba xamse meesha waa in laga saaro wuxuu yiri gudoomiyaha xisbiga annaga noqonayna xogayaan annaga noqonayna xasan oo musharax bisaad noqonaysa xamsaha ka mid noqdo memberska ama dadka caadiga ka tirsan xisbiga laakiin labada awoodood annaga iyo idinka aan qaybsanno meesha daarood wax la meesha ma yaalo yiri baa la yiri xasan wuxuu ku adkaystay in xamse uu dad matalo gudoomiyaha uu noqdo adiguna asna waxay isku haystaan marka asagu wuxuu leeyahay hadaa gudoomiyaha iyo xoghayaha labadaaba hadaan la siinin hal mid kuma qanacsanba marka xasan iyo lafta gareen maxay ku kala boodeen laakiin barnaamijkaas siyaasad say kula tahay wax hirgal ma yahay xasan iyo waqtiga waa isma kala aragto horta xasan maxamed hal sano u hartay hal sanona waxa waaye kolba dheeraadna ku darsanaya oo madaxweyne walba yimaado kan ugu yaraan 8 bilood ku darsaday marka isjiid uu jiraya ugu yaraan hal sano iyo hal sano ku darsan doon laba sano xasan uu sii joogaya marka labada sano doorashada qof codkaad hirgelayso mase ma hirgeli doonto oo teendhada lagu laaban doona su'aal taagan waay midda kale xisbigan hadda ay sameynayaan lafta garaan iyo qorqor iyo cali gudlaabe iyo firdhiye iyo xasan waa xisbi markaasi ayagu ay sameysanayaan oo danta qaaska xasan maxamed looga shaqeynayo ninkan lagu magacaabo lafta garaan wuxuu soo jeediyey marka hore xisbiga qaabka loo maareeyay asaga kuma jirin waxaa la xisbiga waxaa gudoomiye u ah ninka la yiraahdo xamse cabdi bare waxaa xogaye ka cabdiraxmaan odwa musharax oo xasan marka saddexda xubnood oo muhiimka ahayd waxaa kala qaybsaday maxaa la xasan iyo ninka la yiraahdo xamse marka wuxuu yiri arrintaas macquul ma aha arrinta isma bixinayso xisbiga aniga wuxuu dhahay ma yeelayso sadeeta oo xisbiga dhibaato waxa lafta garan xisbiga uu rabaa marka dambe waxaa la yiraahdo xogayaha laga joojiyo cabdiraxmaan odwa waxaa lagu heshiiyay in laga dhigo Sheikh Maxamuud oo saaxiibkiis ah oo afgeyga madaxtooyada ahaan jiray lafta garan koonfur galbeed ninkaas xogayaha joogtada xisbiga laga dhigi doonaa sida marka la isku waafaqay marka kulamo kala lagu balamay lafta garan oo soo laaban doona xisbigoodana saas ku dhawaaqi doonaan oo xogaynta waxa hayn doono joogtada ah koonfur galbeed xamse cabdi bare gudoomiyaha iyo xasan sheekh oo markaas musharax taas ku soo gabagabeysa marka doorashada iyo arrimaheedana waa arrin wali taagan dowladda federaalka Soomaaliya culays badan uu saaran yahay maamul goboleedyada Jubbaland iyo nimanka la yiraahdo Puntland wali way taagan yihiin meeshooda taagan yihiin oo isbedel ma jiro waliba waxay ku sii dartay dowladdu inay Jubbaland ka tashanayso maamulna dhisi doonto gadana la gaarsiin doono maamulkaasi oo halkaas gada saldhig looga dhigi doono marka howlo badan oo isdiidana socdo wixii ka soo koro maalmaha soo socda uga doonaa shido dhaqaayo SC iyo Somaliland waxa u dambeeyay SC iyo Somaliland waxa u dambeeyay isqabqabsi weyn jiro oo ku saabsan maaldoodii waxa jiray ninka la yiraahdo ninka qunsulka u jooga magaalada Hargeysa ay wuxuu yimaaday nimanka la yiraahdo Taiwan ay wuxuu tagay magaalada Lascanood furdhiyo la kulmo Somaliland waxay Taiwan baa Lascanood tagay marka waxay yiraahdeen Somaliland la 72 saacad oo aan uga baxdaa Somaliland ninkii ku xanaaqay nimanka Taiwan ay saaxiibtinimo ka sameeysanayeen dawladdu waa tii baasaboorka Taiwan mamnuucda magta arrintii marka culays kala ku soo baxay waxa la yiraahdo bataatanba waana ka baxdaa mid kale saldhigyo ay rabeen inay yuuda saldhigyo ka dhigtaan oo berbera inay ka sameystaan saldhigyo ay diiday Somaliland oo idan culays kala imaad waxay saldhigyo halkaas ka rabnaa oo aan ka duqeyno nimanka la xoutiinta Somaliland way diiday xitaa ka cabseen ugu jirto in la soo duqeyn ka baqayna marka waxayna saldhigyo ka sameysana meel kale aad marka howlo badan ay jiro isdiidan Somaliland waxay ku fikiraysaa inay dagaal qaado isii qato ku qaado dhulkeeda dib u qabsato waxyaabo fara badan boqor burmada wala arkay oo warbaahinta ka hadlayo dhahayo ilaa waan dagaal galaa gobolada Sool iyo Sanaag gacanta Somaliland lagu soo celiyaa waxyaabo fara badan
marka hadda puntland oo ka goosaystaa oo saaxiibtinimo somaliland ka samaysatay inkastoo dee arrintaasi culays weyn u keeni doonto in isii qaato in la caburiyo dhinacyada laga maro oo maamulkooda si u kansalaan oo qaybna ugu biirto somaliland qaybna ugu biirto puntland ayaa la rabaa taas laakiin iyadoo lagu xumaynayo dowladda federaalka ayaa labadaas dhinac iskaashanayaan imaaraadka carabta dhaqaale ku bixinaya dani iyo cabdiraxmaan ciiran waxay ku kulmi doonaan meesha la yidhahda imaaraadka carabta oo lacag 5 milyan oo doolar loo qaybin doonaa si isii qaato loo tirtiro marka howlo waaweyn socdo howlahaas inuu howlo dhow ma aha saacad kastana wax waa isbedeli karaan dowladda federaalka Soomaaliya dhankeedana firdhiya ku dhawaaqday oo waatay tir madaxweynaha rasmiga loogu dhawaaqay maamul goboleed horteeda madaxweynaha ku sheegay arrintaas waa la soo afjaray hogaamiye lama dhahayn maada madaxweynaha rasmiga noqday maamulka horta maamulka muhiimadda ah mogta inay maamul goboleed rasmi loo aqoonsado ama firdhiya sii joogo ama firdhiya ha baxo muhiimka ma aha laakiin maamul federaal ay noqdeen ayaga ku dhawaaqida madaxweynaha saxiix ugu dambeeya asaas kala wana saxiixay marka uu saxiixay arrinta cilid kama taagno marka aad bay reer laasacnad usoo dhaweeyeen arrintaasi waana farxad gelisay laakiin isjiidkan iyo dagaaladan iyo diyaargarowgan isaanada military la arursanayo ayaa aad u fara badan meesha ku dambeysana waa arki doona ciddi roon ayaa reerka u hari doonto laakiin aysi hadda waxay ka goosaysataa dowladda federaalka Soomaaliya aad iyo aad buu mahadsan yahay gooni daawadayaal idinkuna waad mahadsantiin barnaamij sii sheergaraya meel fogna gaadhsiiya gabaha barnaamijkeena inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan barnaamijkan barnaamij mid ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo